Waxaan joognaa casri tiknoolajiyadda ay noo sahashay wax walba oo nolosha ka mid ah iyadoo aan ka faa'iideysan karno malaayiinta application ee jira. Tusaale ahaan ardayda waxay heli karaan applicationo badan oo ka caawin kara waxbarashada waa haddii ay si wanaagsan uga faa'iideystaan. Haddii aad tahay arday, waxaan muuqaalkan kugula wadaagi doonaa applicationo ka caawinaya waxbarashada ee ku soo dhawow mawduuca. caadi ahaan waan ognahay in ardayda ay mas'uuliyad maalinle ah ka saaran tahay waxbarashadooda. Tiro badnida mas'uuliyadahaas ayaana ardayda ku keeni kara niyad jab iyo inay dareemaan in waqtiga uusan ku filnayn, iyadoo ay sii dheer tahay helista taleefanada casriga ah oo waqti badan oo khasaare ah kaga baxa. Daraasad ayaa sheegaysa in dhalinyarada maanta ay celcelis ahaan isticmaalaan taleefankooda 4 ilaa 5 saacadood maalintii. Weliba ardayda oo ugu yaraan kala bar maalintii waxbarasho ku jira ayaa soo galay daraasadan. Waxaadna nasiib darro arkaysaa arday isaga oo xiisada ku jira isticmaalaya telefoonkiisa. Laakiin ka waran haddii aan ku dhaho telefoonkaaga ayaa kuu noqon kara sirta guusha waxbarashadaada. Waa haddii aad ka faa'iideysato applicationadan aan kula wadaagi doono insha Allah. Applicationka ugu horeeya ee aan kula wadaagi doono waxaa lagu magacaabaa I can't wake up oo micnaheedu tahay ma kici karo. Sida ka muuqata magaca applicationka waxa uu ku saabsan yahay hurdo ka kicinta. Sida aan ognahay, dhibaatooyinka ugu badan ee ardayda ka haysta dhanka waxbarashada waxaa ka mid ah hurdada oo ay ku daahaan, waxayna taas sababtaa inay ka daahaan waxbarashada. Waxaa jira barnaamijyo iyo applicationo badan oo aan u isticmaalno hurdo ka kicinta, laakiin waxaa inta badan dhacda in marka uu gambalaalku soo dhaco aan iska xirno iyadoo hurdada halkeedii aan kasii wadano. Haddaba appkan waa uu ka duwan yahay applicationadaas. Waxa uuna hurdada kaaga kicinayaa si khasab ah. Haddii aad isku daydo inaad damisana, ma damin kartid ilaa aad ka shaqeyso mid ka mid ah toolska uu wato appka, kuwaas oo ah sirta ka dambaysa inaadan sii hurdi karin. Arrinka farxadda leh ayaa ah in appkan si free aad uga heli karto Play Store-ka iyo App Store-ka, waxaana degsatay oo isticmaashay in ka badan 5 milyan. Haddaba aan idin tuso appkan iyo sida uu u shaqeeyo. Applicationkan ugu horeeyaan soo furaynaa. Applicationka marka aad soo furto sidan ayaa ku soo muuqanaysa. Waxaad taabanaysaa halka balaaska ay ku qoran tahay hoos cagaaran. Sida aad u jeedo waxaad dooranaysaa waqtiga aad rabto inaad ka soo kacdo hurdada. Aan dhahno waxaan rabnaa inaan ka soo kacno xilliga salaada 10:45 oo AM ah. Sida aad ogtihiin ama sida caadada ah ka soo bilow 12 habeenimo saq dhexe ilaa 12 duhurnimo AMY. 12 duhurnimo ilaa 12 habeenimana waxa waaye waa PMY. So waxaan dooranaynaa AM. Okay aan leenahay. Saacada waxa ka hooseeya markaa maalmaha. Sida u jeedid waa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Ani hadda waxaan leeyahay dhammaan maalmaha waan rabaa inaan soo kaco. Okay? Waxa ka hooseysa alarm name, yani alarmkaaga magac u bixi. Anaga waxa u baxsanaynaa salaada subaxa u baxsanaynaa. Alarmkeenu waa salaada subax. Okay. Waxa marka aad arkaysaa waxa ka hooseeya soundski ka hooseeya ama codadkii. Haddii aan furno volume-ka codka qaylidiisa intee in la eg ayaa rabtaa inuu gaarsiisnaado 100%. Hadda waxa automatic ay igu sad gareysan aniga 70%. Konton waa ka dhigan kartaa sida aad maqlaysaba. Haddii aad isleedahay yani codku uu kugu gaaban yahayna waa dheereysan kartaa sidoo kale. Okay? Sidoo kale halkan ay ku qoran tahay extra load macnaheedu waxa haddii aad taabato oo jeeg aad saarto qayladiisa ayaa ziyaado noqonaysa. Sidoo kale vibration yani gariir ma rabtaa inaad saarato oo saaran kartaa. Halkaas noise one ay ku qoran tahayna waxaad haddii aad taabato waxaad arkaysaa codadka kala duwan ee ku maxaan ku raahdaa barnaamijka uu wato mid ka rabtaa saaran kartaa marka. Okay. Haddii aan ka gudubno soundska ama codadka waxaan u guda galaynaa qaybta barnaamijkan ugu muhiimsan ahna sirta uu kaga duwan yahay barnaamijyada kale. Waa tasks halka ay ku qoran tahay. Haddii aan furno sida aad halkan u jeedo 7 task ama 7 shaqo ayaa halkan inoogu qoran. Guud ahaan waa 8 laakiin midka ay ku qoran tahay barcode-ka wax task ah kuma jiro oo waa 0. Task ugu horeysa arkaysid waa math. Haddii aad dooratid marka uu alarmka soo dhaco xisaabaad ayaa ku soo dhacaya. Xisaabaadkaas waa inaad ka shaqeysaa. Waxay noqon karaan isu geyn, kala gooyn, isku dhufasho ayay noqon karaan. Sidoo kale dhammaantooda iswatan way noqon karaan. Okay? Marka waa inaad ka shaqeysaa. Haddii aadan ka shaqeyn alarmka ma istaagayo, waa uu sii soconaya. Marka waa sirta uu kaga duwan yahay barnaamijyo fara badan. Caadiyan qof hurdo hadda ka soo kacay marka uu ka shaqeeyo xisaab oo ugu yaraan 5 xisaab oo kala duwan la dhaho ka shaqeeyo uu ka shaqeeyo 99% waxay u badan tahay qofka inuu hurdada ka kaco. Qofka inta ku kici waayna runtii waxaan leenahay waxaan kula sugaynaa barnaamijyo kale oo hurdada ka kicin doona insha Allah. Okay, marka aniga 7 xabo ma wada tijaabin karo, muuqaalka ayaa dheeraanaya, laakiin waxaan ku tijaabinayaa mid ama 2. Marka inta kale adiga tijaabi. Alarm ku sad gareyso tijaabi markuu soo dhaco.
midka xisaabta hadii aan galno sidaas oo kale ayuu ku leeyahay laba xisaab in la isku dhufto kadib lagu daro laba xisaab kale oo la isku dhuftay marka jawaabtoodii laga rabaa calculator-kaaga soo baxsan kartaa oo isku darsan kartaa niyada kaga shaqeyn kartaa waa sidaas halka kore medium-ka ay ku qoran tahay medium-ka hadda aniga waxa ii saaran shaqada iyo shaqo dhexdhexaad waay yani waxay kala leeyihiin saddex qayb waa easy oo shaqo aad u sahlan oo isla markiiba qofku uu niyada kaga shaqeyn karo medium oo shaqo dhexdhexaad ah iyo hard oo ah shaqo aad u adag oo aad u dheer oo ugu yaraan qaadanaysa 5 daqiiqo ilaa 10 daqiiqo marka adiga midka aragtaa saaran kartaa marka halka ka hooseysa waa number of questions su'aalaha lagu weydiinaa intee la egyihiin ama isla egta lagu weydiinaa intee la egtahay yani hadda waxa ii saaran aniga dhanka midig markaa fiirisid afar su'aal ayaa la weydiinaya su'aal markaan ka shaqeeyo su'aal kale uu weydiinaya markaan ka shaqeeyo su'aal kale uu weydiinaya markaan ka shaqeeyo su'aal kale uu weydiinaya dhammaantoodna waa inaan wada saxa hadaan qaldo uu igu soo celinaya su'aashi marka waa ka dhigan kartaa waa ka yareysan kartaa waa ka dhigan kartaa 1 2 3 4 ilaa 5 ilaa 10 su'aal ka dhigan kartaa hadba sidii adiga aad rabto waxaan sidoo kale rabaa inaan idin tijaabiyo mid kale oo runtii aniga aan aad uga helay waa midka ay ku qoran tahay order-ka waa midka saddexaad 1 2 3 4 ku qoran tahay order-ka hadii aan gudaha u galno sida ku muuqata halkan midigta bidixdan dhiraba halka bidixda calaamada play-ga ah oo kala ah hadii aad taabato inta aadan taskiga saarin ayuu ku tusayaa qaabka uu shaqeynayo aan fiirino marka sidaad hadda halkan ka arkaysid taskiga waxa lagu magacaabaa order task yani order waa kala horeyn si wax u kala horeeyaan nambarada hadda halkan kaga muuqata waa number 1 ilaa number 15 laakiin way isku dhex jiraan يعني واسكو قسن يهين ما نظام سنة وحلقة رأوا مركا أديك إنها نظام سد وكسو بلود from 1 to 15 سي ولي بالسيكونس يا سي اسكو حك حقا اوكي سيدا سميني سامرك وحلقنا هاي نمبر 1 هذا واكنا أساقا تاباني سا كدب وصور رئيسا مرك 7 كا ugeynaya marka lan qaabanaya 16 kan geynaya waa qabanaya 9 kan geynaya yani ujeedkaygu wuxuu ahaa number 1 inaan geeska geeyo waxaan ku xijinaya marka number 2 number 2 xaguu iga jira waa kana meesha doonta ka soo bax waa soo raraya dadka jarta aad ku yaqaan way fahmi karaan asaga taabanaysa markuu colorkaas cagaarka noqdo kan ka koreeya ama kan ka dhinaca ka xiga adiga hadba meesha ay kaaga dhowdahay meesha aad rabto inaad geysid hadda waxaan rabaa inaan geeyo number 8 meesha ku qoran tahay oo lambarkooda ku xigta marka kor aan ka soo galo 5 kan ku replace gareeyay yani 5 kan ku bedelay mar kale aan taabanaya 10 kan ku bedelaya mar kale aan taabanaya 8 kan ku bedelaya hadda 1 iyo 2 way isku xiran yihiin waxa ay dhiman meesha 8 ah inaan 3 ka dhigo 3 waa tan hoosta la soo qaad waka okay 4 aawe waa tan soo qaad okay هذا سيكون مقطع كو لابو صدح أفر ويسكو حيجان أوكي هذا اللاين كلا اسكو حجنايا أنا جو مركا شن لح تضرب سديت كدقاي سديت بوس كده وتاجن تاي نمبر 5 أنا رادينايا مركا وكنا سوقات حقاقي 5 وحكو حاجة 6 سوقات سنة وكا 7 سوقات سنة وكا مركا 1 to 8 هذا ويسكو حرين 1 2 3 4 5 6 7 8 اها 9 وكو saxan yahay almost meeshii laga rabay yaala 10 ama 9 waxa ku xiga 10 ayaan soo qaadaya okay 11 ayaan soo qaadaya 12 ayaan soo qaadaya hal mar marka ma soo qaadi kartid waa in midka meesha uu yaalo kan ku xiga ah keenta kadib aa soo rartaa kadib saas aa ku rartaa 13 way saxantaa meeshii taala 14 u keen 5 iyo 10 iyo 6 way isdhaafsan yihiin soo kala hormari marka ay sidaa usu ka aadaan alarmku wuu istaagaya marka okay labadaas aan ku tijaabiyay kuwa kalena adiga tijaabi insha Allah midka ku anfacana ka qaado marka aad calaamadaha hoose aad mid kamida doorato sida hadda aniga orderka ii dooran hadii aad kaas ku dayso ama mid ka rabta dooratid kadib calaamada saxda ayaa taabanaysa okay alarmkan wuu ku set gareysan yahay markuu alarmku ku soo dhaco kaliya waxa ka shaqeysanaysa marka taskiga adiga aad dooratay haday xisaabtu noqon lahayd iyo hadii orderkii hadaan ku tusay noqon lahaydba marka insha Allah waxaan rajaynayaa in wax badan ka anfici doono application kan runtiina waa mid aad muhiim u ah kaana saaciidi doona inaad si dhaqso leh ku kacdo insha Allah abkeena labaad waxa lagu magacaabaa Formulia runtiina waa app aad u anfacaya guud ahaan ardayda gaar ahaan kuwa dhigta dugsiga sare waxa uu ka kooban yahay 3 kamid ah maadooyinka lagu barto dugsiga sare oo kala ah maths physics iyo chemistry waxa inta u dheer waxyaabo kale oo ardayda aad u anfacaya sida scientific calculator periodic table iyo kuwa kale badan
abkan sidoo kale waxaad si free ah uga heli kartaa Play Store-ka iyo App Store-ka waxaana degsatay oo isticmaashay in ka badan 1 milyan oo qof. haddaba aan gudaha u galno abka isla markaana aan isla aragno sida uu u shaqeeyo. waxaan soo furnaynaa markaan application-keena labaad. application-kaas aan hor u soo sheegay waa application aad u anfacaya ardayda. sida aad aragtaan maadooyinka ugu muhiimsan dugsiga sare ayaa halkan kaaga muuqda sida xisaabta, physics-ka iyo chemistry-ga. sidoo kale wuxuu leeyahay calculator, wuxuu kaloo leeyahay periodic table sida aad aragtaan. measurement units uu leeyahay, unit conversion-ka waxa waaye halbeegyada si la isugu bedelo. okay, marka mathematics-ka kale hadaan ku hormarno waxaa ku jira jabtarro aad u fara badan ku jira sida ku muuqata algebra ku jira, geometry, trigonometry. sida ogtihiin trigonometry-ga ardayda dugsiga sare form 4 ka dhigato kale waa jabtarka ugu horeeya waana jabtarka inta ugu badan ardayda ay ka sheegtaan. marka aan gudaha u galno trigonometry-ga kale waa kuwaana marka qaybihii ugu muhiimsan trigonometry-ga. haddii aan midka ugu horeeya ku dhufano runtii dhammaantood idama wada tusi karo waqtigan ma saamaxayo laakiin qayb kamid ayaan soo qaadan doonaa. haddaan fiiriyo measurement and classification of angles yani xaglaha cabirkooda iyo sida u kala qaybsamaan haddii aan fiirino. hadda halkan wuxuu ku leeyahay xaglihii ayuu ku tusayaa marka caadiyan circle-ka waa 360 degree waaye. okay, marka haddii aad fiiriso classification by measure meesha ku qoran tahay waa xog yar oo kooban ku siinaya. A right angle is one that measures 90 degree. xagasha la yiraahdo right angle-ka ama xagasha quman waa cabirkeedu waa 90 degree waaye right angle-ka. straight angle-ka muxuu noqonayaa is one that measures 180. xagasha toosan straight-ka waa 180 yani 90 degree marka la fidiyo waxay noqonaysaa 180 noqonaysaa. waxaa jiro angle lagu magacaabo acute angle ama xagal fiiqan. An acute angle is one that measures less than 90 degree. waa xagasha cabirkeedu ka yar yahay 90 degree. waxay noqon kartaa 45 degree, waxay noqon kartaa 30 degree. 90 wixii ka yar waxaa lagu magacaabaa acute angle. So kale obtuse angle is one that measures between 90 and 180. waxaa jira marka xagal lagu magacaabo obtuse angle. waxaan u maleynayaa af Soomaaliya lagu dhaho xagal daacsan. waa xagasha u dhaxaysa right angle-ka iyo straight angle-ka u dhaxaysa. way yara daacsan tahay, yara fidsan tahay laakiin straight ma aha. right angle-kana way ka yara ballaaran tahay, straightna ma wada fidsana. acute waxaa lagu magacaabaa an obtuse angle lagu magacaabaa. saa darteed sida hadda aad arki karto marka yani wuxuu ku siinayaa faahfaahin kooban ku siinayaa. okay, sidoo kale haddii aan fiirino trigonometric functions oo kale aan fiirino maadaama aan ka wada gaari karin. trigonometric functions-kan waa basic functions-ka waa trigonometry-ga. qofka haddii uusan fahmin trigonometry guud ahaan buu uusan fahmi karin. waana inta ku badan meelaha ay ku wareeraan ardayda. functions-ka ugu muhiimsan ee trigonometry-ga waa 6. saddexda asalka ah ee sin, cos, tan iyo saddexdan kale oo ka farcanta. haddii aan fiirino sin maxaa lagu helaa sida caadiga opposite side-ka oo loo qeybiyo hypotenuse-ka lagu helaa. cos maxaa lagu helaa isagana adjacent side-ka waxaa loo qeybinaa hypotenuse. tanna maxaa lagu helaa waxaa lagu helaa opposite side-ka oo loo qeybiyo adjacent-ga loo qeybiyo. marka sida ku muuqata halkan waa basic trigonometric functions waa. okay, marka adiga mid u gal hadiiba maxaan ku raahdaa aad soo qaadatay ama aad hadda qaadato aad ku saacidi doona insha Allah application-kan. sidoo kale wuxuu leeyahay geometry, wuxuu leeyahay differential calculus sidoo kale jabtarada ugu muhiimsan ee dugsiga sare waliba fasalka form 4 waaye. probability and statistics sidoo kale waa form 4. marka ardayda form 4 ka aad u anfici doona marka application-kan insha Allah. sidoo kale physics-ka isagana waa lamid. ciwaanada ugu muhiimsan ee physics-ka ayuu halkan inooga soo qaadaa sida mechanics-ka, waves, thermodynamics, electromagnetism, optics, modern physics. runtii waxaa ku jira jabtaro lagu qaato form 4 ka hadana qaldan sida optics-ka oo kale iyo waves-ka oo kale. marka mid u dul tag insha Allah ka faa'iideyso dawaalay waqtigiina ma saamaxay inaan mid u dul istaagno. waxaan rabaa insha Allah periodic table-ka oo runtii ardayda aad u anfaca. periodic table-ka waa kana telefoonkaaga soo kugu jiro nadiif ah, clear ah oo aad arki karto maxaan ku raahdaa numbers-kii. marka waxaa laga yaabaa warqad markuu ku yahay inaadan aad u arki karin laakiin hadda waa kan valence-gii wixii oo dhan si fiican u arkaysa atomic number-kii almost. sidoo kale calculator uu leeyahay, scientific calculator uu leeyahay sidoo kale oo modern ah oo calculator-ka caadiga ah oo kale ah. haddii aan kusoo gabagabayno measurement units oo sidoo kale ayadan halbeegyada cabirkoodii ah marka fiirisid length-ga oo kale hadda waa dhirirka. international system iyo english system ayaa kala jira marka wax dhirir lagu cabirayo. international system-ka ayaa caan ah. maxaa lagu cabiraa unit-kiisa maxaa waaye halbeegiisa maxaa waaye waa meter. yani length-ga maxaa halbeeg u ah meter-ka halbeeg u ah. symbol-ka meter-ka maxaa calaamadiisu maxaa waaye waa m. okay, sidoo kale english system-kan maxaa lagu cabiraa meesha meter-ka lagu cabiro waxaa lagu cabiraa foot lagu cabiraa calaamadiisana waa ft. marka waa ka adi marka isaga baashaal mid u dul istaag wax badan ayaad ka faa'iidi doontaa insha Allah.